هو إيجا جوي عفوا كولا إسوقل صاحب يال سؤالي ugu badnaa waa ka jawaabnay ma santihiin live kan live ka xigta ku kulmi doona insha Allah waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo hadii wax su'aalo kala badan jirin nabad geliyo kale su'aalay ugu muhiimsan waa ka jawaabnay waxaan u maleynayaa wax kale oo hadda dhiman oo inaysan jirin waa ka sii baxaya marka saaxiibayaal videoga hore dheeraa cidii su'aalihii ay dhaafeen ama gadaal kala soo qabsatay waa kaga soo ayaga laftirkooda way ka faa'iideysan karaan video kale uu soo galay hal saac iyo xogaa aan live ku jiray marka insha Allah inta programkan uu socdana su'aalo kale waa ka sii jawaabi doonaa hadduu la idmo iyo wixii kale oo loo baahdo inaan sii cover gareyno marka intaan bisha hadda programku furan yahay waa ka jawaabi doonaa waxaan oo live oo soo gali doonaa wixii su'aalo qabtaan hadduu la idmo qoraallo badan hore oo aan diyaarinay su'aalo iyo jawaabo everything meeshii ku jiraan marka qofka u baahan wuxuu samayn karaa soo gal uu halkaas uu kala kasii akhrisan karaa wixii kale oo extra ama anagana wixii u baahantiin mararka qaar jam waaye message-ka oo kale waxa laga yaabaa inaan kasoo jawaab weyno marka naga raali haada saaxiib soo dhow waa dhowahay Somali green card waa ku salaam walaal magacayga aadan weeyo waxaan joogaa Soomaaliya waxaan ka mid ahaa dadkii sanadkan soo baxay 2023 niyow barnaamijkii markaan dokumentiga dhan soo dhamaystay iska kale loo gareeyay KCC fariimo badan aan u diray xitaa waa isku yara rafaadnay oo aad baan fariimo ugu celceliyay haya marka niyow markii ugu horreeyay geliyo waxa weeye confirmation numberku uu shaqeynayay case numberka markaan geliyay asna uu shaqeey qaybta dheed ambaafka xogaha waa la iga diiday oo wixiina way isaxnaayeen kadib waa ku celceliyo maxay yiri KCC la xiriir email bay soo direen number laga xiriir emailka qoray waxay ugu yiraahdeen xogtaan faraha ka qaad bay ugu yiraahdeen adiga ma lihid waa ka shaqsan amal haya marka xogtii marka waxaan iray ana iskale passportkii aan watay iyo dhalashada iyo waxyaalaha dhan baan waxaan ka qaaday sawir baan ka qaaday waxa kale oo sameeyay barnaamijka cilada meesha iga haysatay la intriga originalka ah waxa dhan waa ku attack gareeyo waxa dhan u diray waxay u yiraahdeen hadana mar labaad ay u yiraahdeen linka kale ii direen la xiriir bay u yiraahdeen adil la xiriir bay ugu waaleen markii dambe faraha ka qaaday waxa sameeyay garan dad kale inaan la kaashadaan rajeynayo Nairobi oo safro oo barnaamijkaas aan la kaashado bal meel ay ila gaarto marka ciladaas bay haysatay ها هذا لايف كيجينا عمرنا أنا بسأله خليك أسمعنا سا أرتو مهمة وحاول ديت هيلك كاجا صح أنا هيست نفهمه أجل تاريخ الشغل صح ما يسا تاريخ دلashada sax baan ahay ha inta badan waxa uu sharciyo horaan lahaa marka taariikhdii hore oo haystaan ku xareysay saxda because sida saxda ina hayso waxa ku ogaan kartaa hal mid hal istaabaan tusiyo haye xogtaada inay saxanta waxa ku ogaan kartaa natiijada meel ma ka fiirisay ha confirmation number meel la geliyaa waa la geliyaa ha istaabida aan ku sheegi doono mar waxa sameynaysaa qof waxa iska dhigtaa confirmation numberkiisa uu ka lumay forget meesha hoose confirmation qofkiisa ku qormaar ha meesha qaybta ilaahay firi marka
tusaale markaa natiijada fiirinaysa meesha aad gashaan ka wada oo warqadda oo 1NL-ka ay ku jirto oo inaad guulaysato aad warqadda caddaynaysa ka ogaato confirmation numberkaaga sanadka iyo magaca last name waxaad gelinayso maaha ha waxaa samaysaa waxaa iska dhigtaa qof confirmation numberkiisa uu ka lunsay waxaa rabaa inaad hubisid xogta aad kaysiisa u diraysa inay saxan tahay in kale mogtaa markaa dhahdid forget wuxuu kuu soo saarayaa form aad buuxinaysid si uu confirmation numberkaaga dib kugu soo celiyo waxaa marka lagu weydiin doonaa emailka ku xaraysay magacaaga oo saddexan suu u qoran yahay first last name-ka suu u kala horeeyo u qor ayaga last name-ka u hormariyaan then wuxuu ku weydiinayaa bisha maalinta iyo sanadka waa halkaa ku ogaanaysa marka inaad wax qalad kaysiisa u diraysid iyo taariikhda aad ku xaraysay inay sax tahay mafahme so detailskaas markaa geliso haddii uu kuu soo saaro confirmationkaaga uu dib kuu siiyo taariikhdaas oo hubta 100% mafahme aad iyo aad stepkaas markaa marto oo uu shaqeeyo oo aragtid confirmation markaa retrieve inuu ku sameeyo dib kugu soo celiyo kor kuu soo saaray haddii laakiin uu ku dhaho xogtaa gelisay ma maaj garaynayso xogtaa kaa hayno waxaa ogaanaysaa marka bisha ama maalintaa kaa qaldan because hadda natiijada markaa fiirinaysa sanad bisaa la gelinaya mugta natiijo marka fiirinaya waa confirmation number bisaa la gelinaya sanadka bisaa la gelinaya marka sanadka warqadda confirmationka kugu qoran tahay magacaagana waa haysataa already wax shakiga ka jira marka waxaa waaya maalinta iyo bisha so meshii baa mas-uul sugay ku jira wax yar telefoon ay soo galay marka waxaa samaynaysaa taas waxay kaa caawinaya macnaha inaad 100% hubin oo waxa waaye inuu taariikhda u diraysa because KCC waxba kuma qabanaysa adoon u dirin taariikhda saxda ee foomka aad ku soo xaraysa marka taas waxay ka saacideynaysaa in aad taariikhda saxda KCC heshid horta marka adigu waxaa heshid KCC kuma diidi karto marka inaad balan kugu qabato safaarad heblaayo aba iska dhibnaato laga yaabo tagitaankeeda laakiin waxay ku dhahayaan okay hebel foomka block ka saarmay waa hubnaa taariikhda soo direen waa sax kadib inta waxay ku leeyahay Nairobi tag ama meesha adiga Nairobi horta kugu soo qoraan si automatic ah waxaa sameynaysaa adaa iska bedeli karta intaan ha Soomaalida dhan Nairobi u qoran waa la socdaa postiga halkaas marka waxaa sameynaysaa stepskaas marka saddex case oo saan oo kale aan soo maray midka ugu adkaana 22 ga sanadkii hore dadka DV22 ga 21 ka guuleystay case ka mid ah jira saan oo kale oo waqti badan because taariikhda inaa helna adkaatay marka hore taariikhda saxda adoo helina deelka waxa u dirayso dhan wali waxay ku dhahayaan kugaata wixii hadda aan kala dagaalamayna wali wada taariikhdii horta way saxan tahay bisha iyo maxaan ku rahdaay iyo taariikhda waxay dhan way saxan yihiin macal sanadka sanadka asagoo wax private ma markii soo saaraya meesha iskaga qoran yahay su'aashan ku weydiinaya oo hadda aan wali fahmin hadda confirmation numberka waxaan gelinayaa 2024 qaybta oo aan lagu ogaa natiijada laakiin forgetkaas meesha la leeyahay wali arag oo rabaa inaan raadiyo ugu fiican tahay meesha gelinaysa ka hoose boxka aad gelinaysa ka hoos qoran taabo ha ayda blue ku qoran tahay forget confirmation number ku qoran marka geliso marka waxay ka saacideynaysaa ina xogta aad diraysa ay sax tahay su'aalaha ku weydiinayaan ka jawaab markaas wuxuu ku soo celinayaa confirmation numberkaaga oo kor ku soo saaray aad soo markaas waxaa 100% ah hubta taariikhda saxda ee mid ay tahay laakiin haddii uu ku dhaho xogtaan ma saxno oo confirmation numberku ku soo celin waayo still waxa u baahan tahay inaad sii raadisid confirmation numberkaaga ma fahamtay macnaha taariikhda saxda inaad raadisid halkaasna waa meesha kaliya taariikhda lagu raadiyo foomka dhexdiisa taariikhda lagu baadi goobaayo dadka waa kala taliyay waa inay iska dhaafaan because uu progressma laakiin forget marka dhahdo haddii taariikhda shaki ay jirto xataa areas boqolaal jeer hadaa ku celiso xataa it's like waxa raadinaysaa confirmation numberkaaga laakiin form is progressna ma amugta taasna waa marka hadda waxaa leedahay habeenka natiijada raadsanaysay meesha aad gashay hadda geli baa leedahay halka ayda bal dhugo confirmation number qof haysan amal iska dhig forget confirmation number de si kugu soo celiyo wuxuu sameeyaa dadka iska lumiya loogu talagalay confirmation wuxuu ku weydiinaa emailkaagi magacaaga saddexan warqada ka arki doontaa de waa haystaa already confirmationka sanadkina waa haysataa emailka ku xariisan waa taqaanaabo bishii maalinta marka geliyo ku dhaha bishii maalinta marka hadduu hor uu soo booda marka confirmationka bas kor ku soo fuulayo already uu ku tusaa ilaa xogta gelisaa sax haddii markaas ogaanaysaa bisha iyo wax walba inay sax yihiin KCC marka emailka formatka u qoraysay wixii kala askira sax kaliya KCC waxa leedahay salaan marka dhahdid yani KCC waxa u baahanahay keeskayga blog uu noqday ina unblog iga dhigtaan
kadib wax war badan uma qoraysid waxaa raacinaysaa full case number mar walbana zeroska waa ku daray saddex zero ama afar zero wixii la socdo markaa ku dartid magacaago saddexan iyo taariikhda dhalashada say u tahay maraykan formatkooda bisha u horeyso markaas KCC kuma dhihi karta dee waxba kuma qaban karno because xogtii saxda usoo dirtay aad iyo aad baa umahadsan tahay hadda halkiiba fiirin insha allah waan dhugan meesha fogeeda waan raadinayaa haddii aan helano waa arkaya insha allah laakiin dhibka jira waxaa weeye xala waxaan kaala soo hadlay qaybta oo inboxka kaala soo hadlay oo qaybta message-kan kaala soo hadlay hadda lafteeda fariin baa kaga soo diray marka xitaa haddii aan fahmi waayo waxaan jeclaan lahaa halkaa inaad fariintii kasoo jawaabtid meelahaas camal xoogaha fariin calaamada ii soo saartid adigoo maxsan marka markaa ka baxa insha allah markaa ka baxaa kuusoo qoraa insha allah ay mas-uul maxsan tahay aywa adam thank you mahadsantihiin waxa waaye haddii su-aal kala jirin shahaadada dowladda soomaaliya samayso maqbalayaan ha maraykan waa lagu maraa dadkii o dhan waxay sameeyaan wax soomaaliya qofka soomaali interview maro dhan shahaadada soomaaliya ama liqaa ama shahaadad kaleeto oo ama kenya qofka wax ku barto soomaali wax ku barto shahaadada waa la tigi kartaa midda soomaaliga caadi waa kale wix kaloo hubin ama aad ka hubin kama marto oo waxbarashadeena aad ka ahaato xoogaa xaalkeeda ilaahay bariga dhexe waaye ilaahay aan noqdo waddankan aan u hagaajiyo marka laakiin ilaa hadda qofkii ma jiro cid ku dhahaysa adiga waxba maada soo baranaya iskuulkaaga khalad waayo wax ku dhihi kar male waa inaa heli kartaa waa la tigi kartaa marka saaxiib baad mahadsantihiin haddii saasoo kale su-aal aysan jirin inaan kasii baxaa rabaa insha allah shahaado macahad oo dugsi sare ah wax dhib ah miyay keenaysaa waa inuu dugsi sare qofku wataa macahayda qaar waa dugsi sare qaarna waa iska diblooma caadi bixiyaan marka waa inaysan diblooma ahayn waxaa waa inay dugsi sare tahay shahaado dugsi sare waa inay tahay intaa sameyn sawirka footo miya sawirka footo iyo mobilka keeba fiican muhiimadda waa sawir inaad iska qaado clear ah wejigaagana kaamilto ku fiirinaysid backgroundka ama dhabarka dambe sawirka uu cad yahay saaka loogu talagalana aa ka dhigtid intaa wax dheer male telefoon isaga qaad waa isaga qaadi kartaa kaamera isaga qaad waa isaga qaadi kartaa dar selfie dad isaga qaadaa jira garbahaaga waa inay muuqdaan si fiican garbahaaga siman yihiin haddii xaaskayga uu soo baxo aniga maxaa shuruudaha oo laga rabaa shuruudaha dugsiga sare waxbarashada hebel oo hebelkan oo kan waxaa laga rabaa qofka guulaystaha ah qofka xaaska ku daba qoran iyo caruurta waxaas o dhan ayaga waxaa laga rabaa keliya baasbooradooda wax kaloo shuruudo laga rabo malaa'ig kaaga laakiin markaa buuxsanayso waa inaad dhihi kartaa waa aadi su-aalaha waxbarashada waxaas waa ka jawaabaysaa laakiin ma jiro qofku dhahayo haddaad waxba soo baramin iyo haddii kale ayagoo isku mid laakiin qofka guulaystaha laga rabaa shuruudaha inuu maro oo xaaskaaga kaloo heshay waa in ayaga ka jawaabtaa su-aalihii la weydiiyey adna lagu wareegsanaa dabcan guurkiina goormuu dhacay laakiin shuruudaha kale waxbarashada iskuulka ayadaa laga rabaa mahadsantihiin waa kasii baxayaa habeenka idin wacnaado haddii su-aalo kala jirin waqti wanaagsan habeen iyo maalin waxay kuu tahay wanaagsan xaggayga waa kowda duhurnimo Seattle Washington waa mahadsantihiin saaxiibayaal insha allah waa kasii baxayaa wixii kaloo su-aalaha isugu imaan doonaa abdullaahi waqti wacan asalaamu calaykum